dalkan Mareykanku waa dal leh astaamo cajiib ah koboc badan ka sameeyay qaybaha horumarka ee uu dal yeelan karo ee ku soo dhawaada taariikh aanad weliga maqal aragna intaynaan bilaabin barnaamijka waxaan ku xasuusinaynaa subscribe noo saarta gambaleelkana furato si ay ku soo gaadhaan muuqaalada dambe soo gelinaa ee ku soo dhawaada barnaamijka muddo 100 sano ah baa laga joogaa markii uu Mareykanku noqday dalka dunida ugu dhaqaalaha badan xilliga tirada dadkiisu waxay ahaayeen 106 milyan halka maanta ay yihiin 380 milyan oo qof dhaqaalaha Mareykanku wali waa kan ugu xoogan dunida waxa uu gaaray 22 trilyan ma jira dal dhaqaale ahaan ku dhow 4 meelood meel dhaqaalaha dunida ayuu haystaa sidoo kale waa dalka alaabta ugu badan dibadda kala soo dega ahna ka labaad ee alaabta ugu badan dhowsha tirada dadyowga dunida Mareykanku 4% ayuu ka yahay haddana waxa uu dalkaas haystaa hantida ugu badan ee dalta 29% kaydhantiyaadka dunida yaal waxa uu yaalaa Mareykanka waxa ku nool 90 milyan oo qof oo isugu jira dad aan ku dhalan Mareykanka oo soo galooti ah iyo carruurta ay dhaleen dadkaasi waa dalka muhaajiriinta ugu badan ku nool yihiin dunida 19 daqiiqo kastaba qof soo galooti ah baa soo gala dalkaas 73% dadka ku nool waddanku waa cadaan qudhoodu boqolaal sano ka hor ka soo haajiray Yurub kuwaas oo sameeyay maamulka hadda ka jira Mareykanku maanta waxa uu hogaaminayaa ganacsiga dhaqaalaha aqoonta cilmi baadhista maalgashiga siyaasadda ciidamada wax soo saarka iyo dalxiiska waa dalka saddexaad ee dalxiisayaasha ugu badan ee booqdaan dunida waa kan koobaad ee shidaalka ugu badan soo saara caalamka ahna kan koobaad ee shidaalka ugu badan iibsada waa dal aad u baaxad weyn oo lagu tilmaamay inuu yahay kan afraad ee caalamka ugu weyn in ku dhow 20,000 oo madaar baa ku yaal gudaha Mareykanka waa dalka leh madaarada ugu badan caalamka sidoo kale madaarka ugu mashquulka badan dunida ayaa dhaca waa dal astaan u ah halabuurka iyo dahqaadada waxyaabaha uu dalkaasi dahqaaday waxa kamid ah diyaaradaha taleefanada kombiyuutarada laambada qaybo kamid ah internetka iyo waxyaabo kale oo badan waa dalkii ugu horeeyay duulimaad diyaaradeed sameeya maanta shirkadda rakaabka ugu badan qaada dunida waa Mareykan sidoo kale Mareykanku waa dal horumar ballaaran ka sameeyay sayniska iyo caafimaadka tartankii hawada sare waa dalkii ugu horeeyay ahna kan qura ee dalkiisa ka soo jeeda ay dayaxa ku dul tageen 12 qof 12 qof ee taariikhdii waa gashan inay dayaxa cagta soo dhigeen dhammaantood waa Mareykan xaqiiqada saanagu ma hubno in 12 qof ay dul tageen dayaxa ganacsiga marka la soo eego labada suuq sarif ee ugu weyn dunida labaduba waa Mareykan 10 shirkadood oo ugu qiimaha sareeya dunida 8 kamid ah waa Mareykan 100 shirkadood ee dunida ugu dakhliga sareeya 4 kamid ah waa Mareykan shirkadda shaqaalaha ugu badan dunida shaqaalaysiisay waa Mareykan cajiib danka waxbarashada haddii aynu nimaadno daawade waxbarashada 10 jaamacadood ugu horeeyay dunida 8 kamid ah waa Mareykan 25 hore 18 kamid ah waa Mareykan jaamacadda ugu horeysa dunida waa Mareykan waa dalka martigeliya ardayda ugu badan ee ajaanib ah ee dal aan kooda ahayn u waxbarasho doonta caalamka danka ciidamada waa dalka loo arka kan ugu ciidamada xoogan dunida waa dalka qura ee haystay ka badan 10 markaboo diyaaradaha xambaara dalal kale ee haysta dhammaantood haddii la sugeeyo isaga ka badan diyaaradaha dagaalku 13,000 ayay kor dhaafayaan dalal ku soo xiga tirahaan isku darkoodu isaga ka badan in ka badan 7,000 oo madaxo nukliyeer ah ayuu haystaa waa dal ku baxshay ciidamadiisa kharashka ugu badan 10 dalal ee ku soo xiga isku darkooda isaga ka badan Mareykanku waxa uu saldhigay ciidan oo dhan 680 saldhig ayna joogaan ku dhawaad 400,000 askari ku leeyahay in ka badan 70 dal oo 6 qaaradood ah sidoo kale waa dalka hubka ugu badan dibadda u iibgeeya marka laga hadlayo dhanka hodantinimada kaabadh dadka milyaneerada ah ee dunida ku nool waa Mareykan sidoo kale 8 kamid ah 10 qof ee dunida ugu hodansan waa Mareykan in ka badan 700 bilyaneer ayuu leeyahay dalkaasi halka dalka ugu dhow oo Shiinaha ah uu leeyahay 325 bilyaneer waa dal haysta kaydka dahabka ugu badan ee caalamka dalka horumarkaas oo dhan gaadhay oo dhan walba kaalinta koobaad kaga jira dadkiisa waa kala isir diin dhaqan midab iyo afba 500 sano ka hor waqti laga jooga baa dhulkaas laga helay dadkii ugu horeeyay oo haajira reer Yurub bay ahaayeen maantana iyaga ugu badan 30% waa dalka qura ee laga heliyay isir kasta oo caalamka 37 qowmiyadood oo kamid ah dadyowga dalkaas ku nool ayaa dadkooda 1 milyan kor u dhaafaya mid kasta daawade haddaynu ku soo koobno Mareykanka waxa lagu tilmaamaa dalka halabuurka ilbaxnimada aqoonta tiknoolajiyadda iyo madadaalada sawirradan noo muuqda sawirkan waa New York iyo astaanta xorriyadda magaaladaas 850 luuqadood baa lagaga hadlaa cajiib daawada halkaas ayaynu ku soo koobnaa barnaamijkeena ku saabsanaa taariikhda Mareykanka oo aanad weliga hore u maqal aragna fadlan say dhiirgelin noogu noqoto fadlan videoga like saar siina share gale. Assalaamu calaykum.